بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا وناكسن داوديال سو دواada waxaan ahay Cali Umar Cabdalla waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daawadayaal waraysigan waxaad xog badan kaga heli doontaan arrimo fara badan marka aan ku faaqidi doono madaxweynahana su'aal aan ka weydiin doonaa arrimo ku aadan doorashooyinka dalka mudane madaxweyne sharaf bay noo tahay inaan kula kulanno waraysigan aan kula yeelano waraysiyo kale bulshada Soomaaliyeed aan ugu iftiiminayno xaaladda dalka ka jirta doorashada qaabkii u dhacayso waan rajaynaynaa inaan marar fara badan waraysi kula yeelano farxad bay inoo tahay soo dhow mudane madaxweyne waa mahadsan tahay toos ugu gudagalaynaa xoogan waxaan ku saari doonaa doorashada dalka marka la filayo in dhawaan uu galo mudane madaxweyne muddo dheer waxaa soo taagan muran fara badan uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka ee dalka annagoo og June 2018 magaalada Baydhabo inaad ku kala saxiixateen hannaan doorasho oo qof iyo cod ah ma noo sabayn kartaa bulshada Soomaaliyeed ma u sabayn kartaa mudane madaxweyne in marba sharci la qaato iyadoo hannaankaas uu jiray bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Shabeelle iyo daawadayaasha fiirsada ama xiiseeya waa idin soo dhaweynayaa runtii arrintan taagan doorashada waxa weeye waa wax loo baahan yahay dadka in loo iftiimiyo waa saa sheegtay annagu waxaan bilownay 2017kii 2017kii aan bilownay guddaan u saarnay guddigaasi waxay ku soo gabagabeeyeen shaqadoodii ku soo dhameeyeen shirkii aan ku yeelan wadatashiga ahaa ee Baydhabo halkaas oo aan ku saxiixnay dalku inuu aadayo doorasho qof iyo cod ah sida dastuurku qabo runtii hawshaasi hawl fiican oo noo qabsantay ahayd oo aan rajeynayay annagoo sanad joogna in aan isu diyaarinayno doorasho qof iyo cod ah dalka inuu aado kadib sida ay tahay sharciga waa in golaha wasiiradu ay ansixiyaan ay iska gudbiyaan kadibna baarlamaanku uu ansixiyo halkaasna hawsha ay ka bilaabato golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 2019kii 2019kii ay ansixiyeen baarlamaankii u gudbiyeen baarlamaankuna waqti u qaatay anigu waxaan saxeexay 2020 February yaan saxeexay oo uu noqday sharci faafinta rasmiga aan ku faafinay oo aan dadku ugu sheegnay in dalku uu u jihaystay doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay saas tahay oo aan dadku ku baraarujinayno aan u sheegayno aan ku wacyigelinayno inay isdiyaariyaan axsaabo badan ay is-rejistareeyeen oo isdiiwaangeliyeen oo dhaqaale bixiyeen oo meelo badan ay ka furteen xafiisyo iyo halwadeenno ay ka howlgeliyeen Puntland iyo Jubbaland yaa waxay noqdeen caqabad oo soo istaagay in dalku uusan gelin qof iyo cod oo ay tahay in lagu noqdo doorashadii dadbaneyd waxay qaadatay muddo in laga wada hadlo hawshaas waxaan u aragnay markaa inay xal ahayd haddii laga hadlayo wada ogol in loo tanaasulo sidaas yaa waxaa weeye doorashadii sharciga ahayd ee qof iyo codka ahayd looga gudbay doorashadii dadbaneyd oo la yaqaanay oo 2016kii uu dalka soo maray meeshaas yaa wax lagu gaaray September 17 heshiiskii September 17 doorashadii dadbaneyd oo weliba uu ka duwanaa tii 2016kii maxaa yeelay waxay martay baarlamaanka oo aan ka sharciyeynay oo halkaas baarlamaanku ka soo saaray sharciga la yiraahdo law number 30 macnaheedu waxay tahay kaliya ma aha heshiis siyaasadeed oo la isku afgartay oo la saxiixday kaliya ma ahayn waxay ahayd hawl kale oo baarlamaanku uu ku suspend gareeyay ama ku joojiyay doorashadii qof iyo codka ahayd oo maxaan ku raahdaa loo gudbay markaas doorasho dadban waxaan qiyaasaynaa markaasi inay wax walba hagaageen oo Puntland iyo Jubbaland waxay ku qanacsan yihiin loo yeelay oo iyagu ay qorteen
oo dowlad goboleedyadii kale ay u tanaasuleen oo annagu dhan aan u tanaasulnay sida aan dhowr jeerba aan meelo badan uga sheegay waxaan qiyaasaynay marka in haddii ay heleen waxay rabeen dalku inuu u jeysanayo doorasho iyo doorashadaas ahayd dadban jadwalkii baa yaan keennay jadwalkaas oo ay ku qoran tahay qorshaha roadmapka doorashada bil walba iyo isbuuc walba wax la qabanayo iyo maalinta ugu dambeysa doorashada la galayo labadii oday markiiba meelahoodii ma aysan tegin ay ka yimaadeen waxay u duuleen Abu Dhabi iyo Nairobi imaaraad iyo Kenya laba bilood ayay maqnaayeen taleefanadana waa dansadeen waxay soo noqdeen iyagoo liis kala wata oo leh waxbaa naga khaldamay waxbaana la hoosgeliyey waxaan rabnaa in 3 qodobna loogu daro hawshaasna hawl dhammaatay oo runtii sugaysay dhaqangelinteeda ahayd implementationkeeda sugaysay laba biloodna ay naga khasaartay oo jadwalkii waxyaabo badan la qaban lahaa dib looga dhacay aysan soo dirin guddiyadii hawsha qaban lahaa dowlad goboleedyadii kalena ay soo dhammaystireen wixii looga baahnaa markii ay yimaadeenna ay keeneen codsi hor leh iyo conditions runtii hor leh muddo sidii looga doodayay waxaa lagu soo afjaray meesha la yidhaahdo baydhabo 3 qodob markii dhuusamareeb aan isugu tagnay oo ahayd maxaan ku raahdaa Febraayo 4 iyo 5 ay ahayd aan wax meel isla saari weynay laakiin aan aragnay doodo inay culus tahay ay tahay waqtigii ummadda shacabka Soomaaliyeed loo tanaasuli lahaa haddii ay ku xiran tahay doorasho in la galo 3 qodob oo kaliya 3 qodobna waxay ahaayeen arrimaha Somaliland guddiyadoodii gadow arrin ka taagneed oo muran ka taagnaa iyo Somaliland yay ahayd 3 waa 3 iyagu ay keensadeen Somaliland gado Somaliland gado iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba 3daas ahayd 3duna waxay ahaayeen 3 iyagu ay lahaayeen waxaan qiyaasaynaa marka haddii mar 3 qodob oo aan loo baahnayn inay ka daba keenaan doorashadii dadbaneyd oo qorneyd oo baarlamaanka la marsiiyey oo sharciga noqotay in maxaan ku raahdaa ay keeneen aan ka aqbalnay waa ka aqbalnay waxaan filaynay marka in la isu yimaado halkan magaalada Muqdisho la isugu yimaado oo la saxiixo macnaha iyadoo ummadda Soomaaliyeed loo sheegayo in la heshiiyey horena loo dhaqaaqay laakiin ma dhicin saa sheegtay waa lagu fashilmay waayahay waa mahadsantahay mudan madaxweyne waxaad ii raacisay 17 Sebtembar doorashadii dadbaneyd oo magaalada Muqdisho aad ku kala saxiixateen idinka maamul goboleedyada waa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada muddo 6 bilood ku dhow ayay soo jiitamaysay ama uu soo jiitamay heshiiska Sebtembar 17keedii khilaaf baa jiray oo u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar oo aan ka magacaabi karno Puntland iyo Jubbaland conditionska ama xaaladihii ay soo jeediyeen dowladda federaalka dhabarka ma u dhigatay inaad ka xallisaan oo aad maxaa la yiraahdaa tabashooyinkooda aad meel marisaan si dalka doorasho u aado waa su'aal wanaagsan 3 qodob ay keeneen oo aan ku xallinay baydhabo oo ay soo dirsadeen dad heer wasiirka ah oo matalaya iyaga dowladda federaalkana ay dirtay 2 wasiir halkaasna ay galeen 3 bari oo maxaa la yiraahdaa debate furan dood furan ay ka galeen iyagoo la tashanaya meelihii ay ka yimaadeen goboladii ka yimaadeen dowlad goboleedyada ka yimaadeen waxay isla meel dhigeen 3 qodobba waxay ka soo saareen sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii Sebtembar 17keedina loogu dari lahaa annagu waxaan aaminsanayn hawshaasi way dhammaatay bacdama ay ahayd 3 qodob ugu dambeeyay halkan markay yimaadeen waxay yiraahdeen shuruudo kale ay la yimaadeen horta saad og tahay waxaan ilaamiyey shirar in isugu yimaado
kan hadda aan halkan aan ku kala tagnay waxaan codsaday in shir la isugu yimaado Garowe madaxweynaha Puntland waa diiday waxaan codsaday shir kale in la isugu yimaado Baydhabo haddii uu diiday Puntland haddana Dhuusamareeb magaalada Muqdisho oo aan ilaamiyey inaan isugu imaano 18 Febraayo aan isugu imaano waa yimaadeen dowlad goboleedyadii kale xaqiiqatan hadda intuu shirka burburay waxay joogeen 45 casho midkiiba dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug saddexdaba iyo gobolka Banaadirba Puntland iyo Jubbaland runtii ma aysan imaanin waa baaqdeen 18 Febraayo markii aan balantii qabanay adu calaayi xaal si kasta ahaatee markii dambe waa yimaadeen marka ay yimaadeen waxay yiraahdeen shirka lagu qaban maayo afisyoon lagu qaban maayo madaxtooyada waa in lagu qabto xalana meel u dhow waxaan isla garanay marka afisyooni in lagu qabto waa ka aqbalnay waaya shirkii waa noo furmay waa diidan inay yimaadaan 3 beri waxaa kulmayay afartaas saddexdaas dowlad goboleedyo iyo gobolka Banaadir iyo aniga shirkii afisyooni shirkii afisyooni ka hor waxaan rabaa saddexdii condition ay keeneen maamulada dowladda dhexe way isku dayday inay ka qanciso waa ka qancinay laakiin waxay la yimaadeen shuruudo kale oo cusub saddexda ka duwan waa ku soo wadaa shuruud waxay yiraahdeen madaxtooyada shirka lagu qaban maayo waa ka aqbalnay maxaa la yiraahdaa in afisyooni lagu qabto ma aysan imaanin 3 ber markuu shirka socday dowlad goboleedyada waxay isku dayeen inay soo qanciyaan 3 beri oo kale iyo haddana isku dayeen inay qanciyaan waa qancin waayeen iyagu mar walba waxay ku xadaaqaan annaga halkan waxaan u nimid oo nacazumay beesha caalamka xaqiiqdii anaa cazumay waa xaqiiqa inay ahaayeen runtii dad meelo kale ku xiran waa xaqiiqo way taas oo iyagaaba sheegayba oo ma qaryaanba inay meelo kale ku xiran yihiin 3 beri oo dowlad goboleedyadu ay qancin waayeen ugu dambaystii waxay aqbaleen inay noo yimaadaan waxay yiraahdeen camera ma ogolin in la keeno in masbuur in la qaado ma ogolin maxaa la yiraahdaa shirku waa inuu noqdo ice breaking wax la yiraahdo shir hordhac ah waa inuu noqdo oo aan uga doonno ajandaha shirka iyadana waa ka yeelnay waa ka wada yeelnay kulligeen intaas waxa ma ahayn waa ku soo dhaweynaynay afisyooni kugu imaanaya marka waa sax maasan tahay madaxweyne waxaan rabaa 17 September caqabadahaas soo jiitay 6 bilood kadib afisyooni la isugu tagay waa lagu kala kacay shirkii afisyooni madaxweyne iyadoo aan la meel marinin shirkii 17 September lagu heshiiyey tii marka ay soo gudbiyeen guddigii farsamada ee doorashooyinka maxaa fashiliyeen madaxweyne waxa fashiliyay shuruudaha cusub ay keeneen maxaa yeelay 3 shuruudood oo Baydhabo recommendations talooyinkii laga keenay Baydhabo waa aqbalnay waxay keeneen dhowr shuruudood kale waxay yiraahdeen waa inay beesha caalamka soo fariisato oo iyagu ay garantoor ka noqdaan shirka waa koow laba waxay yiraahdeen baarlamaanka way la kala diro baarlamaanka sharciga ahaa oo iyaga awood siiyay inay wax soo xulaan maxaa yeelay doorashadan waa doorasho national ah waay marka doorasho national ah dowlad goboleed runtii shaqo kuma laha laakiin law number 30 yaa wuxuu siiyay dowlad goboleedyada inay wax soo xulaan marka baarlamaankii u ogolaaday oo awooddaa siiyey iyo waxay soo istaageen waa in la kala diro waxay kaloo ay yiraahdeen waa in ciidamada qalabka sida taliyaashooda la kala diro iyada naftigeeda arrintaasna waa arrin runtii aad iyo aad u xanuun badan maxaa yeelay markaas waxaa socday dagaalkii Berre iyo waxaa socday dagaalkii Awdhig la socday oo askar badan halkaas Allah naxariistay ee nooga dhimatay kuwa badan ku dhaawacmeen dagaalkii oo socda dhexdiisii waxay leeyihiin oo yiraahdeen ay soo jeediyeen in taliyaasha la kala diro marka runtii intaas oo shuruudood oo aanan qayb ka ahayn
tii baydhaba September agreement aan qayb ka ahayn iyo la soo degeen maxaa ku kalifi kara mudane madaxweyne waxaa ku kalifi kara saan isleeyahay ma rabin inay galaan doorasho xaqiiqatan maxaa yeelay markii aad loo murmay waxay soo istaageen September 17 ma aha sax September 17 waa dhacay waqtigiis waa dhacay maxaa yeelay wax alla wixii heshiis ah lagu gaaray iyo jadwalkii lama fulin saas darteed September 17 agreement heshiiskaas waa buray heshiis ka jira wax ka jira ma laha aan hala fariisto kow hadda wax la qorto marka dad ku talagalay ma ahayn inay halkan wax la wada saxiixdo oo kadibna dib loo noqdo oo doorashooyinkii iyo xulashadii la galo marka waxaa runtii ka go'nayd inuu shirkan fashilo maxaa yeelay tan kale ee keeneen waxay ahayd oo ugu dambeysay in madaxweynayaashii hore ka soo qayb galaan iyadii taas waaba ka aqbalnayba maxaa yeelay waa dad mas-uuliyiina ee dalka madax uga soo noqday horey waaba ka aqbalnay iyada taas oo markiiba waxba muran lama gelinba laakiin waxaan filaynay inta kale oo qodob ay keeneen inay tahay qodobo iyaga aan awood u siinayn inay ka dhigaan qiil ka dhigtaan si shirka uu socdo taas darteed markii 3 bari lagu doodayay oo runtii si kasta loola hadlay oo la yiri walaalayaalow September 17 idinka askale idinka keensaday idinka ka soo shaqeystay idinka codsaday idinka soo saxiixay idinka ka shaqeeyay waalidin ogolaaday oo waalidin tanaasulay baydhabo talooyinka ka soo baxay idinka keenay oo in lagu daro heshiis horey loo saxiixay oo dhamaaday waalidin ka aqbalay iyadana marka wixii idinku aad awal keensateen oo idinka aad curiseen oo aad ka shaqeyseen qaad wax kale aad keentaan aysan jirin si doorashadan ay horu dhacdo waxay soo istaageen oo intaas dheer baarlamaankani waqtigiisa waa dhammaaday oo hala kala diro oo baarlamaankan heshiiskii sharcigii baarlamaanka ee law number 30 ayaa wuxuu siinayaa baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan la soo doortay oo la dhaariyey sidaasoo kale madaxweynaha iyo prime ministerka waa iyagan sidaasoo kale waa firaaq inaan la helin waxay yiraahdeen waana la hoosgeliyey maanan ogeyn saxiixaas maan ogeynba macnaha sharcigii maanan akhrin maanan ogeyn oo sharciga waa qaadateen inta idinka idin khusaysa oo ah in sharcigan awood idin siinayo in laga guuro doorasho qof iyo cod ah oo loo guuro doorasho dadban waa aqbasheen oo waa akhriseen sharcigan idinka idin siinayo awoodda inaad wax ku soo xushaan laakiin maadan akhrin qodobka saddexaad oo sheegaya firaaq inuusan jirin maadan akhrin laakiin qodobka koowaad waa akhriseen marka taas waxay caddaynaysaa inaysan daacad ka ahayn xaqiiqatan in meeshan heshiis u yimaado doorasho lagu galo oo dadban waayahay aad baad u mahadsantahay madaxweyne waxaan rabaa afsiinoo lagu soo kala kacay golihii shacabka fadhiistay mudane madaxweyne oo iyagu qirtay haddii maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe laantii fulinta doorashada isku fahmi waayeen in iyagu xaq ay u leeyihiin doorashada dalka inay jiheeyaan sharcigay soo saareen oo la yidhaahdo jihaynta doorashada dalka oo 2 sano ah mudane madaxweyne waa saxiixday weliba si degdega u saxiixday maxaa kugu dadejiyay inaad saxiixday sharcigaas dalku horta waa inuu doorasho galo maxaa yeelay waxa weeye dastuurka wuxuu siinayaa 4 sano walbaba in doorasho ay dhacdo oo la isdoorto 4 sano waa xaqiiqa waa dhammaatay laakiin law number 30 yaa wuxuu siinayaa haddii uu dib u dhaco doorashada sida horeba ugu dhici jirtayba 2016 dib bay u dhacday 2011 dib bay uga dhacday 2012 bay noqotay 2003 dib bay uga dhacday macnaha waxa weeye doorasho dalka ka qabsoonta waqtigeeda ku qabsoonta ma jirin marka
bacdama xildhibaanadu ay khibrad u lahaayeen in doorashadani ay dib u dhici karto iyo waxay geliyeen qodobkaas dhahaya in si uusan firaaq u gelin dastuuri ah in hay-adaha dastuuriga ah xilhayntooda ay maxaan ku rahda ilaa laga bedelayo ay sii joogaan taasaa siinaysa baarlamaanka runtii inta doorasho ay dhacayso oo xildhibaan walbaba xildhibaanka bedeli lahaa la dhaarinayo inay sii fadhiyaan maxaa yeelay saa sheegtay inay meeshii bannaanaato lama ogola oo adduunka meelay ka dhacday ma jirto in meeshii la banneeyo maxaa yeelay waxa weeye waxaa loo shaqeeyaa ummad yaa loo shaqeeyaa oo loo adeegaa maaha wax qof shaksi uu leeyahay maaha markuu rabo ka tegi karo markuu rabana uu imaan karo ma aha mas-uuliyad baa saaran marka xildhibaanada iyo baarlamaanka bacdama ay yihiin hay-adda ugu sarreysa sharci dejinta waxa weeye awooddii waxay siiyeen dowlad goboleedyada oo sharcigii ahaa law number 30 ayay ku siiyeen markii heshiiskaas siyaasadeed la galay haddaba waxay sugayeen baarlamaanku inay aadaan goobahoodii tartanka ay ka qayb galaan qofkii soo noqdana ha soo noqdo qofkii ay soo noqon waayeen haditiisa wakhtigiisa saas ahaa ma ay helin oo waxaa meeshan caqabadan oo Puntland iyo Jubbaland ay ka shaqeynayeen 7 bilood yaa taagnaa dalkiina dee hore uma socdo soo ma fahmin dalkii hore uma socdo waajibaadka marka saaran oo dastuuriga ah baarlamaanka waxa weeye bacdama aan nahay dal xor ah oo siyaasaddiisana u madax bannaan in haddii ay shaqayn weyday heshiiskii siyaasadeed oo weliba ay ka shaqayn weyday 2 dowlad goboleed inay iyagu dib u qaataan mas-uuliyaddoodii waxay sameeyeen waa mas-uuliyaddoodii way waxay sameeyeen oo ah hadday shaqayn weyday shalay tii ansixiyeen September 17 oo ay wax ka soo noqdeen oo 3 qodob dib looga daray oo aan dastuuri ahayn sharcina ahayn 3daas qodob kuma jirto September 17 kuma jirto laakiin waa laga dabageeyey iyadoo sharci ahayn bacdama ay caddaatay inay taagan yihiin labadan dowlad goboleed baarlamaanka hala kala diro dowladnimada hala kala diro ciidamada hala kala diro oo beesha caalamka dee haloo hoos fariisto dowladnimadeennii qarannimadeenni meeshaas ha ku baaba'do dee mas-uuliyad baarlamaanka saaran waxay tahay in ay qaataan waajibaadkooda waaya waa mahadsantahay mudan madaxweyne waxaan rabaa inaan ku noqdo qodobkii ugu dambeeyay hadda ay ahaa Puntland iyo Jubbaland madaxdooda waxay codsadeen in baarlamaanka la kala diro taliyaasha ciidamada la kala diro maxay bedel u hayaan haddii baarlamaanka dalka la kala diro oo baarlamaan bedel aan lahaynin dagaal al-shabaab lagula jiro oo bariiri u dhiigla waxa ka dhacay aan ka ognahay ciidamada qalabka sida saraakiishoodii haddii la kala diro yaa bedelaya leeyihiin anigu waxaan aaminsanahay wax loo soo dhiibay inay tahay meeshaan hawshaan shisheeyaa ku jira oo runtii Soomaaliya dhibaato badan ku hayay muddo dheer oo 30 sano ay ka istaagi weyday waxaan aaminsanahay in hawshaan ay tahay hawl ay fulinayaan loona soo dhiibay maxaa yeelay qof muwaadin Soomaali ah oo wadani ah oo raba in dowladdiisii uu burburiyo uu kala diro haddee ma aha wax maskaxda galaya maaha wax normal ah maaha weliba qofka uusan ka xishoonin uu leeyahay waxaan rabnaa qolooyinkan beesha caalamka ah inay garantoor noo noqdaan ay damaanad qaadaan oo shalay markii September 17 aan siixanayni yaa damaanad noo ahaa nalama dhex fadhin annagaa heshiinay waxay rabeenna waa loogu qoray iyagaana ku qorto waxay rabeen marka hadda naftigeeda wax diidaya ma jiraan wax Soomaali ay leedahay beesha caalamka waxay la soo taagan yihiin annaga idin ma soo dhexgalino iyaga intay u tagaan waxay leeyihiin kaalay noo imaado soo fariista oo annaga idaacadahan ka sheegayna inaad cazunteen oo aad marti aad maxaan ku raahdaa aan idin nahay see waddankooda marti ugu noqonayaan dad shisheeye ah oo xalana fadhiyo oo beesha caalamka ah see ay marti ugu noqonayaan dalkoodii joogaan sidee ay u sheegayaan weliba idaacadaha uga sheegayaan in beesha caalamku ay u noqdaan garantoor ama ay u noqdaan damaanad qaadaan hadday damaanad aniga iga waayeen ama ay ka waayeen baarlamaankooda yay ka helayaan
marka runtii waxaan u arkaynay inay tahay meel ka dhac inay tahay iyaguna waxay u arkayeen inay tahay wax normal ah. waayahay waa masantaa mudane madaxweyne waxaan rabaa sharcigan hadda aan ku weydiiyey ee baarlamaanka jihaynta doorashada ee 2 sano ah ee madaxweyne aad saxiixday mucaaradka iyo waliba dowlad goboleedyada hadda aan ka dhawaajinayno waxaa lagu eedeynayaa oo la sheegayaa mudane madaxweyne in dowladdu ay ka dambeyso iyadu ay soo saartay baarlamaanka loo soo dhiibay iyagu la yiri u gacan taaga madaxweyne adigana si degdeg ah u saxiixday eedeynta waxay imaanaysaa marka madaxweynaha wuxuu rabaa muddo kororsi 2 sano ah marka horeba saasuu ku fikirayay mar hore wayna u meel martay taa ma jirta mudane madaxweyne runtii intaas tanaasul ma aanan samayn lahayn haddii ujeedkaygu ahaa muddo kororsi taas xaqiiqo ma aha xaqiiqda dhabta ah waxa weeye heshiiskii September 17 wuxuu ka dhaqaaqi waayey labadaas dowlad goboleed kadibna inta jeer aan tanaasul ka sameynay ummadda Soomaaliyeed runtii way ka dharagsan tahay maxaa la yiraahdaa tan hadda taagan oo baarlamaanka ay ansixiyeen oo hadda tii ugu dambeysay doraad ahayd anigu ma dhihi karo waa waqti kororsi ma dhihi karo aniga waxaan isleeyahay waxaa weeye waxaa laga guuray doorashadii dadbanayd waxaa dib loogu noqday doorashadii qof iyo codka ahayd oo qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed runtii xuquuqdiisa iyo awoodiisa iyo sharafkiisa ku jirto maxaa yeelay waa soo aragnay doorasho dadban anigu markii hore ma rabinoo waxaan aad iyo aad ugu ololeynayay doorasho qof iyo cod ah waxaan u tanaasulay labadaas dowlad goboleed bacdamaa aan ka weynay wax inaba ha yaraatee compromise ah ama tanaasul aan ka weynay marka annagaa u tanaasulnay annagoo filaynay inay iyagu dee qaadayaan oo la ordayaan oo fulinayaan oo ka shaqeynayaan laakiin haddiiba dee dhibka yaalla uu yahay inay meelo kale wax ka maqlaayaan oo haddana liis kale ay la imaanayaan baarlamaanku waxaa waajib ku ah inay dib ugu noqdaan wixii dastuuriga ahaa dastuurkan waxaa noogu qoran dadka shacabka ah in awooddooda iyagu ay leeyihiin doorashadu iyagu ay leeyihiin ciddii rabaan ay ku dooranayaan xisbiyada nidaamka xisbiyada badanna la qaadanayo oo qabiilkan iyo dadkan moogtahay qabiilka hadda aad ugu ololeeya ay isugu tagayaan axsaabo oo dib loogu celinayo awooddii shacabka runtii waxa weeye waa wax dastuuri ah ma aha waqti kororsi waxay sameeyeen waxa ay sameeyeen wixii dastuurku farayay yay sameeyeen bacdamaa wixii dastuurka aan waafaqsanayn oo ay ka shaqeeyeen inay suspend gareeyaan ama ay laalaan ama joojiyaan sharcigii doorashooyinka ee dastuurka noogu yaalay si wada ogol u noqdo doorashada dadban ya oo dalku hore ugu socdo laakiin haddii dalku ma istaagnaanayo waa inuu hore u socdo baarlamaankana runtii mas-uuliyadda saaran waxay tahay haddii uu shaqeyn waayey oo khaasatan labadaas dowlad goboleed ay caqabad noqdeen u fadhin maayaan awooddii waa leeyihiin sharciyadda waa leeyihiin annagu waxaan nahay dal xor ah waxaan nahay dal maxaan ku rahdaa siyaasaddiisa u madax bannaan qaran baan nahay dastuur yaan leenahay institutionskii hay-adihii dastuuriga waa shaqeynayaan baarlamaanku ugu horeeyo marka inay qaataan waajibaadkoodii mas-uuliyaddooda qaataan haddii dowlad goboleedyadii ay shaqeyn waayeen wixii ay lagu heshiiyey ay fulin waayeen waxaan isleeyahay waa waajibaad saaran waaye anigana dee khasbiyan waa aaminsanahay baarlamaanku inuu yahay hay-adda ugu sareysa sharci dejinta lama undermine gareyn karo lama yaraysan karo haddii ay go-aankaas qaateen oo i madax banaanaayeen maxaa yeelay hay-adda fulinta golaha fulinta iyo golaha baarlamaanku waa laba hay-adoodu kala madax bannaan iyo maxkamadaha iyagaa iskale go-aankooda maxaa la yihahdaa iyagaa iskale maxaa la yihahdaa inay u codeeyaan waana sameeyaan wixii iyaga waa mahadsan tahay labadaas sano marka mudane madaxweyne ma is leedahay doorashada aad rabtaan dowladdaada mudane madaxweyne rabta dalka doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo oo nidaamka xisbiyada badan ah
qabiilkan laga gudbo dastuurka sida ku qoran sharciga la aado ma isleedahay waa lagu qaban karaa waa lagu gaari karaa iyadoo aan kugu daree weli awoodda doorashada ay leeyihiin awoodda dalka siyaasadda ay wax ku leeyihiin maamul goboleedyadii aad ku tilmaamteen dowladda dhexe ay ku tilmaamtay inay ka socon waayeen ama ay ka socon weysay heshiiskii 17 Sebtembar waqtigaas runtii u malayn maayo inuu qaadanayo in doorashada lagu qabto laakiin waxaa iska leh mas-uuliyaddeeda guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka yaa iska leh inay keenaan jadwal ama road map ay keenaan ay yidhahdaan waqtigaasaa lagu qabanaya waa saa sheegtay sax weeye in aan raadinno dowlad goboleedyadaas aan raadinno si kasta aan u raadinno dadkooda maxaa la yidhaahdaa oday dhaqameedyadooda aan raadinno culimadooda aan raadinno ganacsatadooda aan raadinno siyaasiyiintooda aan raadinno aan u toosno shacabkooda aan raadinno maxaa yeelay shacabku waaba rabaanba in dib loogu celiyo oo dad yaroo kooban aysan isdooran sida tii maxaan ku raahdaa doorashadii dadbanayd marka shacabka yaa la rabaa inay u kacaan oo maxaan ku raahdaa ay ka shaqeeyaan sidii annagu baarlamaanka iyo dowladda federaalku ay uga shaqeysay in la gaarsiiyo awooddaas shacabka dib loogu celiyo inay iyaguna hantaan awooddaas oo ay ka shaqeeyaan oo ay ku qanciyaan xildhibaanadooda ay ku qanciyaan madaxweynayaashooda inay tahay waqtigan waqtigii loo baahnaa uu shacabka codeyn lahaa waayahay labadaas sano marka maamul goboleedyada diidan doorashada dalka inay ka dhacdo ee Puntland iyo Jubbaland ay aad madaxweyne tilmaamteen Sebtembar heshiiskii inay ka dhaqangeli weyday in shacabkooda iyo xildhibaanadooda aad ka dhaadhicisaan oo soo jiidaan dalka dagaal wuxuu kula jiraa al-shabaab oo doorasho qof iyo cod caqabad ku noqon karta shabaab la dagaalankooda inaad xoogga la saaro labadaasna waa lagu gaari karaa waa lagu gaari karaa ka yarna waa lagu gaari karaa xaqiiqatan in shabaab meesha laga bixiyo in dadka la wacyigeliyo in wadaniyadii aada loo soo celiyo in dadka lagu abaabulo inay tahay awooddan awood dastuuri ah oo ay iyagu leeyihiin xuquuqay leeyihiin in aysan eedeen cid kale dhowr qof ama oday dhaqameed aysan eedeen oo iyagu ay qaataan mas-uuliyaddooda oo xisbiyadu ay ka qayb galaan ay u ololayaan xisbiyada qof walbaba uu qaato muwaadin ahaan waajibaadkiisa inuu codeeyo si nabadna ku codeeya waxaan aaminsanahay in la gaarsiin karo waad mahadsantahay mudane madaxweyne waxaan rabaa afisyoon inaan ku noqdo shirkii waa lagu soo kala kacay kala kicii shirka kadib iyo saxiixii shirka sharcigan heshiiska jihaynta doorashada ee baarlamaanka beesha caalamka intooda badan way hadleen waxay ku celceliyeen in heshiiskii dib loogu noqdo wada hadalladii iyo gogashii la fariisto 17 Sebtembarna lagu heshiiyo 2 sano oo muddo kordhina la aqbali karin madana madaxweyne diyaar ma u tihiin wada hadalladii Sebtembar in madaxdii diidaneed mar kale dib u noqotaan horta waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan dalkan iyagaas kale dalkan waa dalkoodii Soomaaliya waa dal qaran ah waa dal xor ah u madax bannaan masiirkiisa u madax bannaan siyaasaddiisa u madax bannaan beel caalam annagu waxaa nagala dhexeeya xiriir oo loo baahan yahay inuu hagaagsanaado laakiin iyagu ma digteed garayn karaan masiirka ummadeed ee Soomaaliya ma digteed garayn karaan mana u malaynayo inay rabaan inay sameeyaan maxaa yeelay warqadahooda hadda aragto kuwii ugu dambeeyay Security Council ka soo baxay waa ku caddeynaya Soomaaliya inay tahay qaran madax bannaan u madax bannaan jiritaankiisa uu yahay waxaan muran ka jirin siyaasaddiisana ay u madax bannaan yihiin waa wax cad weeye tan labaad oo xaqiiqada ah waxa weeye institutionskii ama hay-adihii dowliga ahaa oo dalka ka jiray iyo dastuuriga ahaa iyaguna waa shaqeynayaan waajibaadkoodana waa fuushanayaan waa qabanayaan marka cid bannaanka uga imaanaysa oo noo sheegaysa annagu sidii aan dalkeenna uga shaqeyn lahayn ummaddeenna uga adeegi lahayn kuna hogaamin lahayn shacabkeenna ma u malaynaya inay jiraan dowladda noo sheegaya ixtiraam in uu naga dhexeeyo annaguna ixtiraamayno iyaguna ayna ixtiraamayaan dana ay leeyihiin annagana dana aan ka leenahay intaasaa la rabaa in la fahmo laakiin cid annaga noo sheegi karta ama baarlamaanka khasbi karta maxaa yeele baarlamaanku
waxa weeye waa hay-adda golaha shacabka marka la leeyahay waxay matalaan shacabka soomaaliyeed 15 milyan oo soomaaliyeed iyo matalaan marka haddii ay yiraahdeen baarlamaankii dib waxaan ugu soo celinay shacabkii inay codeeyaan oo qof iyo cod loo ay dib ugu soo celiyeen ma khalad ay sameeyeen waa wax runtii dowladahaas ay sheegayso qaarkood ay ku dhaqmaan marka haddii America looga dhaqmo qof iyo cod Yurub looga dhaqmo qof iyo cod wax noo diidaya ma jiraan mana u maleynayo iyagu inay ka soo horjeedaan dimuqraadiyadda anagu aan rabno ama baarlamaanka uu shalay sharciga ka soo saaray sharcigan asaxeeda ka soo mudane madaxweyne shirkii ama heshiiskii ka socday afisiyoni oo lagu baaqay in dib loogu noqdo marna ma dhici kartaa in la isku soo noqdo madaxda maamul goboleedyada isku soo noqdaan marka way dhici kartaa waxa weeye wada tashigu waa naga wada dhexeeya waa qodob dastuuri ah in la wada tashado marka waa khasab in la wada tashado laakiin September 17 waxaa ka dambeeyey sharcigan cusub September 17 wuxuu ahaa doorasho dadban doorashadii dadbaneyd sidaan sheegay waxaa ka soo noqday dhib baa ka yimid caqabado yaa maxaan ku raahdaa laba dowlad goboleed yaa caqabado runtii ku noqday marka si kastana waa la yeelay si kastana waa loogu tanaasulay marka haddee wax kale oo la samayn karay ma jirin runtii intaas ka badan marka sharciga aad saxiixday baarlamaankan uu codeeyay kadib 17 September doorashadii dadbaneyd kana ka dambeeyay marna ma dhici karto marka ma dhici karto maxaa yeelay baarlamaanku wuxuu soo saaray sharci ka dambeeyay oo tilmaamaya dalka in shacabkiisa ay u dareeraan qof iyo cod kii hore wuxuu ahaa mid ku salaysan doorasho dadban la leeyahay oo dad kooban ay maxaan ku raas xulanayaan yuu ahaa marka kana ka dambeeyay baarlamaankuna runtii aqlabiyad ballaaran yuu ugu codeeyay sidaan isleeyahay waa 149 yaa ogolaatay saddexna waa diiday halna waa ka aamusay marka haddee dimuqraadiyad dhab ah weeye waana la wada arkayay sidii ay wax u dhaceen ma ahayn wax shaki ku jiro oo maxaan ku rahdaa wax lagu godi kara maaha waaya waa mahadsantahay mudane waxaan rabaa beesha caalamka marka la yiraahdo waad ku soo celisay dowladaha Puntland iyo Jubbaland dowlad goboleedyada marka la yiraahdana marar badan inta hadda wareysigan aan sameynayno waad ku soo celisay si kale haddaan u dhigano mudane madaxweyne markii heshiiskii ama shirkii dhuusamareeb 4 lagu soo kala kacay baarlamaanka hortimid isla maalintii sabtida waxaad sheegtay inay jirto faragelin shisheeye Soomaaliya ka jirto sax waxaan rabnaa mudane madaxweyne ma jiraan dowlado aad farta ku fiiqi karto shacabka Soomaaliyeedna aad u iftiimin karto Soomaaliya faragelinta waxa ku haya doorashadeeda iyo siyaasadeeda iyo madaxdeeda ku dhaca kala dhex jira waa dowladaha ma jiraan Soomaaliya 30 sano dib ku jirtay 10 sano dowladda aan yahayd wixii ka dambeeyay dowlad ku meel gaar ah iyo hadda teeramkii labaad oo dowlad rasmi ah dalka ka jirto burburkaas dalkeena soo gaaray waxa ka faa'iideystay dowlado badan yaa ka faa'iideystay dowladahaas qaar ay yihiin dariskeena waxayna uga faa'iideysteen hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto dhan siyaasad hadday noqoto dhan security iyo uga faa'iideysteen amni iyo uga faa'iideysteen waxay uga faa'iideysteen dhanka dhaqaalaha waxa weeye Soomaalida dhaqaalaha lahayd waxay tagaan مثلا نيروبي وكله dhaqaalihii dalkan la gelin lahaa waxa lagu dhisaa dal kale Nairobi lagu dhisaa ganacsi iyo uga jiraan maxaa la yiraahdaa Soomaalida diaspora joogay intaysan Soomaali imaanin meesha ku hakadaan oo usbuuciyo joogan hoteelay ka degan yihiin ama business ay naftooda uga jiraan waxa soo haray lacagaha xawlaadaha kulligood bangiyada Soomaaliya ka faa'iideysta waa bangiyada Kenya ganacsi anaga dhaxeeyay qaad matalan marka la fiiriyo oo dhaqaale badan ay ka helaan waxa intaas dheer lacagaha NGO-yada UN ka tahay lacagaha kale oo European Union ka tahay lacagaha kale oo adduunka ka yimaada kulligood waxa lagu maamulaa Nairobi waxa ka shaqeeya
kenyaata ka shaqeeya dadka jooga oo ajnabiga ah guryaha ka degan yihiin hoteelada ka degan yihiin guryaha ka gataan marka lacag aad u fara badan dhaqaale aad u fara badan yaa Kenya ku socday intay Soomaaliya burbursanayd dhanka siyaasaddu Soomaaliya waa ka maqnayd saxada marka waa in loo hadlo Kenya waxay ahayd wadamada u hadlaya Soomaaliya haddii ay noqoto qaybteedana qaadanaya hadday hesho arrimaha security-na waa sidaas oo kale oo waad aragtaa AMISOM ciidamo badan baa ka jooga dhaqaale badan yaa maxaan ku rahdaa halkaas askartooda ka helaan macnaheedu waxay noqotay Soomaaliya meel lagu nool yahay oo dhaqaalaha dawladaha dariska ah kor u qaaday GDP-gooda kor u qaaday marka Soomaaliya oo xoog yeelatay Soomaaliya oo security-geeda ciidankeedii tayadiisa kor loo qaaday dawlad rasmi heshay Soomaaliya dawlad xoog la heshay maxaa la yiraahdaa dhaqaalaheedii kor u kacay waxay ka soo celinaysaa marka wax alla wixii dawladahaas uga maqnaa dib ay dalka ugu soo noqonayaan macnaheedu markaas waxa weeye waxa ku dhacaya dawladahaasi shaqaad la'aan badan yaa ku dhacaysa hadda mesela arrimaha qaadka ilaa 200 dad gaaraya shaqalaan uga dhacday macna xiriirkeena xumaaday dartiis Kenya ha marka taas waa wax yar marka la fiiriyo billions Kenya magaca Soomaaliya runtii ay uga faa'iideysatay Soomaaliya burburkeeda iyo dhibkeeda iyo waxa ay ku jirto marka taasi waa factor jira waay oo xaqiiqo ah waxay keenaysaa markii qofku dhaqaale badan yahay uu awood ciidan ka badan yahay ka siyaasad badan yahay waa ka siyaasad badan maxay yeelay qofka hadduu ka dhaqaale badan yahay oo arrimaha amnigaagana wax laga weydiinayo siyaasaddiina waa la socotaa oo waxa weeye waxa khasab ah inuu raadiyo leverage wax la yiraahdo inuu raadiyo meelo badan uu arko inuu ka dhibaateyn karo haddii uu siyaasaddiisa kaa waayo maxaa intaas keenay waxaa intaas aan ku darayaa oo ay keentay dhibkaas annagana soo gaaray oo dee dawladahaas naga faa'iidaysteen baddiina lagu qabsaday baddeennii inna lagu qabsaday baddii aniga 4 sano aan joogay runtii waxaa iga soo gaaray culays aad u fara badan oo dhinacyo badan iga imaanayay waa xaqiiq bacdama aan muddo dheer saaxada ka maqnayn Kenya waxay leedahay saaxiibo aad u badan oo adduunka oo dhan ah marka dawlad walba nala soo hadlayay oo lahaa Kenya u daaya oo pressure meel walba nooga imaanayay oo aan kala har lahayn hadda oo waqtigii dhamaaday oo aan sugayna maxkamadda inay soo goyso go'aan yaan loo imaanay wax leeyahay ma ka soo celin kartaan ha ma ka soo celin kartaan dacwadii ya dawladda qaar ku leeyihiin ka soo celiya bal aqal xumadaas fiir waa hadda oo intii aan soo adkaysanay 4 sano aan soo adkaysanay iyo intii kharash nooga baxay iyo Kenya waxay sameysay oo ay kuraastii banaysay oo keeskii lagu mudacay oo looyaradeennii ay dhammaysteen hawshii oo aan sugayna bilaha soo socda go'aan inaan helno yaa waa lagu soo waxa lagu leeyahay ma dhici kartaa inaad si culayska lidinkaga dejiyo ma ka soo celin kartaan war kama soo celin karno mana ka soo celinayno ma garad wax shakhsi uu gaari kara ma aha waxaan ummadda Soomaaliyeed baa iska leh jiil hadda aan dhalan yaa iska leh macnaheedu waxa weeye waxaana lagu soo waday culays aanan caadi ahayn handadaad aan caadi ahayn maxaa la yiraahdaa haddii xitaa lagu laaluushi karo la isku dayaa in lagu laaluusho haddii xitaa maxaan ku raahdaa lagu oran karo waa lagala shaqeyn doonaa electionka soo socda wax kasta lagu day wax kasta lagu day ma garad xaqiiqatan waxa weeye bareesharkii aan kala kulanay wax sahlan ma ahayn marka taas waxay noo cadeysay dawladdaasi inay saaxiibo badan leedahay oo u hadlayo anu markaan ka hadlo intii iyada inala hadlaysay oo xiriirkeenu fiicnaa marka laga tago marka waxaan kaaga wadaa haddii ay dawladdan adkaan lahayd ay xoog lahaan lahayd dhaqaalaheena uu ahaan lahaa dhaqaale viable ah oo taagan siyaasaddeenu ay ahaan lahayd siyaasad xoogaysan Kenya iskuma daydeen inay bad nagu qabsato maxaa yeelay waxaan isku dayi lahayd 30 sano ka hor isku dayi lahayd in ay nagu qabsato naguma qabsan
maxaa yeelay waqtigaasi dowlad dhisan yaa jirtay burburkay ka faa'iidaysatay marka dowlado badan oo waxaa jira sidaas oo kale uga faa'iidaysata oo raba Soomaaliya inay saas ku hayaan laakiin xaqiiqatan waxaa caddaatay ummadda Soomaaliyeed inay nool yihiin weli ummadda Soomaaliyeed inay nool yihiin inay soo jeedaan damiir ahaan inay nool yihiin waa dhib waana soo gaaray waa la turaanturooday waa la qalbi jabay waa dhab waxa weeye dadka hamigii waa ka jabay waa xaqiiqa laakiin waxaa xaqiiqa ah ummadda Soomaaliyeed weli waa nool yihiin sida ay badda ugu istaageen kulligood sida dowladooda ay u taageeraan maalin walbaba sida ay u diidaan shisheeyaha hagardaamadiisa iyo waxa uu sameynayo iyo say u soo jeedaan wax caadi ah maaha waay madaxweyne waa mahadsantahay waxaan rabaa su-aasha waxay ahayd faragelinta dowladda federaalka ay sheegtay in dalal shisheeye Soomaaliya ay ku hayaan siyaasadeeda doorashadeeda dhaqaalaheeda waxaan qiyaasayaa hadda waxaad carabka ku dhufatay daqiiqado kooban aad ka hadashay Kenya yaad noogu dari kartaa shacabka Soomaaliyeedna ugu iftiimin kartaa markaan Kenya ka tagno Kenya toos waxaan ugu iftiiminayaa waxa weeye waxaa naga dhaxeeya muran badeed maxkamad iyo hawshan ku soo dhamaatay calaaqaad ma lihin marka taas yaa waxay keentaa inaan u caddeeyo dadka sida nalooga faa'iidaysto dhibkeena looga faa'iidaysto sida nalooga faa'iidaystay intii aan burbursanayn laakiin ummadda Soomaaliya weli inay soo jeedo dowladaha kale mar kale ka hadli doona insha Allah waay waa mahadsantahay mudane waxaan rabaa isla beesha caalamka iyo dalalka Soomaaliya ka baxsan ee siyaasadeeda iyo doorasho dalka inay ka dhacdo saameynta kula aan rabaa inaan ka hadalno mudane 4 sano ee madaxweynaha aad tahay xaalado kala duwan ayay dowladdaadu la soo martay gobolka iyo wadamada carabta qaarkood xaaladda hadda sida ay taagan tahay madaxweyne ma ku qanacsan tahay xaaladda hadda ay taagan tahay Soomaaliya ka soo kabashadeeda dhibkii ay soo martay waxa weeye waxaan aaminsanahay inaan ku jirno kabasho wanaagsan waxaan ugu qanacsanahay sida aan hore u sheegay haddana aan ku celinayo shacabka Soomaaliyeed waxa moodaa inay baraarugeen qabiilkii iyo qabyaaladii lagu weerarinayay muddo dheer inay ka baxeen oo ay ka tageen waana waxyaabaha aniga aan isleeyahay horumarka haddii la yidhahdo hal arrin sheeg dalkan 4 sano saameyn aad ugu geysatay ama aad ku samaysay waxaan oran karaa waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed ay arkaan laba garab oo siyaasadeed garab annaga aan soo tilmaano oo dowladdii ah aan aad uga hadalno oo aan barmood gareyno inay muhiim tahay midnimada Soomaaliya waan u taagannahay labo wadaniyadda oo ah wax waayadii hore aad afka aan lagu dhufan jirin saddex dowlad wanaag in dowladdu ay tahay dowlad wanaagsan oo ay ka shaqayso hadday noqoto dhanka reformka dhaqaalaha reformka security-ga iyo dhisidda maxaa la yidhaahdaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta dalka iyo in ummadda Soomaaliyeed ay runtii aan tusno muhiimadda ay leedahay dalka adigina leedahay shisheeye waxaan isku leenahay ixtiraam iyo haddii loo baahdo wada shaqayn laakiin aan loo hoos fariisan wax walbaba oo isku kalsoonaato annaga intaasaan u taagannahay intaasan runtii waa ku celcelinaa haddii maanta aan dhaho maxaa impact ama saameyn dowladdaani ay samaysay waxaan aaminsanahay dadku in wacyigooda wadaniyadda uu kor u kacay midnimadana la fahmay muhiimadda ay leedahay dowlad wanaagga aan ka shaqaynana caalamku uu noo qiray dhinac walbaba ummadda Soomaaliyeedna runtii ay markhaati ka tahay iyo qabka Soomaaliya inuu soo noqday aan soo celin qabkii Soomaaliyeed marka laga tago wax la dhisay iyo mushaharaad la bixiyay iyo meesha aan caalamka uga jirno
deen cafiskii iyo marka waxaas oo dhan laga tago iyo dhismaha ciidanka iyo kulli intaas waxa weeye qulubta dadka because inta aan marka inta wax la qaban ka hor waxaa la rabaa qofka inuu faham siyaasadeed leeyahay ama ideology leeyahay afkaar uu leeyahay anaga afkaarteena waa taas dad aad u fara badan runtii waa ku baraarugsan yihiin afkaartaas waayahay waa mahadsan tahay middan waxaan rabaa xiriirka wadamada kale dowladdaadu ay la leedahay inaan su-aalka kaasii weydiiyo waxaa jirta hadalahayn ah madaxweyne farmaajo dowladaha dariska uu soo kala dhaweystay Itoobiya oo ahayd Soomaalida ay u arkayeen cadawga koowaad ee Soomaaliya ay leedahay madaxweyne farmaajo xiriir dhow ayuu la yeeshay Kenya wuu fogeeyay Itoobiya iyo Eritreana xulufo ka dhigtay arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa mudane arrintaasi runtii waa arrin dhab ah waa dhab weeye maxaa yeelay siyaasadda Itoobiya waa isbedelaa ka dhacay awal siyaasadda Itoobiya iyo siyaasadda Kenya waxay ahayd hal siyaasad oo ku wajahan Soomaaliya waliba siyaasaddaas aan dhihi karo dibindaabyada dalkeena ana oran karo inkastoo aan ku ammaanayo ana uga mahadcelinayo qaybta ay ka qaateen dadaalada la dagaalanka argagixisada maxaa yeelay taas nafteeda waa dantoodii weeye maxaa yeelay haddaysan yeelin argagixisadu waxay u tallaabayaan xuduudda dhankooday aadayaan marka taas isku dan ayaan ka nahay waxa weeye Itoobiya siyaasadeedu waa isbedeshay annagu awalba waxaan raadinaynaa fargelin Soomaaliya laga daayo waana ognahay Itoobiya sidii ay fargelin ugu haysay Soomaaliya TPLF groupkii TPLF-ka oo 30 sano ku dhawaad haystay Itoobiya runtii sida ay iyo dhibaatooyinka ay ka geysteen Soomaaliya isbedel yaa ka dhacay isbedelkaasi wuxuu keenay inaan isfahmno oo aan isku fahmno inaan lisfargelin oo la is ixtiraamo haddii wax la wada qabsanayana wax la wada qabsado iyadoo la yahay daris su wanaagsan laakiin aanan Soomaali sidii hore iyo dhaqankii hore ee TPLF ka lahayd aanan loola dhaqmin taasna waa aqbaleen sidii uu u yimid prime minister-kan cusub Etoobiyana runtii waa fulay balantii anna maalintaan imid oo la doortay oo aan safarada ku kala bixiyay dowladaha dariska intaas way waxaan kala hadlayay waana dhibteen ummadeenna waxa weeye faragelin badan aad ku soo hayseen muddo dheer naga daayeen faragelintiina gurihiina iyo dalalkiina jooga annaga dhexdeena iyo hawlaheena iyo siyaasaddeena gudaha faraha kala baxa waana documented weeye mar alla meel kasta aan tagana saas yaan kala ahaa wax anigu aan qarsanay ama si gaar ah oo qarsoodi aan ula hadlay ma ahayn waxay si public ah oo press conference-yada aan wada qabanaynay ay tilmaamayso in faragelinta ay naga joojiyaan ayaheena annagu aan ka tashanno raahdaa ay maxaan ku raadnaga qaadan waxay kugu tilmaamayaan inaad tahay madaxweyne dictator ah jecel xukunka aan rabin in kursiga uu ka dago miska aaminsan tahay arrintaas haddii maya ay tahay maxaa sahlay in ay faafto hadalhayntaas waxa weeye runtii waa nasiib darro waxaa loo baahan yahay dadka in loo fasiro macnaha rasmiga ah waxa dictator uu yahay adiga aan su-aasha kugu soo celiyo ma jiraa nin siyaasi ah oo dowladdan u xiran ma jiraa nin media ah oo dowladdan u xiran ma jiraa waxa weeye dadku xor ma yihiin oo siyaasiyiintu siday rabaan moo hadlaan dhaqaaleheen dhaqaale xor ah ma yahay ma waxaa jira dhaqaale dad gaara u gaar ah oo aanan laga soo geli karin waxa weeye anaa kaaga jawaabaye waa maya ma jiro marka intaas waxay caddaynaysaa marka macnahay u yaqaanaan dictator waa wax kale marka dadka sheegaya hadday u yaqaanaan dictator in la dhiso dowlad hadday u yaqaanaan dictator in ciidan la dhiso haddii dictator u yaqaanaan xoolaha ummadda in loo ammaanada loo hayo oo aanan hantida dowladda aan suuqa la geenin la xaraashin hadday u yaqaanaan dictator ma aha qofkaas dictator waxa weeye qofka
awoodda maxaa la yidhahda ku takrifala oo caburiya dadka oo xirxira dadka oo dadka dhiba ma garatay oo dhaqaalahooda aruursada soo ma garan marka waxaa ka xun fasirkaa ka xun marka magac kale waa inay ii raadiyaan aan kaas ahayn waayahay waa mahadsan tahay waxaan rabaa kiiska badda madaxweyne waa soo hadal qaaday inaan su-aalkaa weydiiyo shacabka soomaaliyeed dhegtaa u taagan dhegeysiga u dambeeyey ee foolka ahaa inkastoo Kenya ay ka maqnaayeen haddana shacabka soomaaliyeed aad bay ugu dhegtaagayaan maxaad uga iftiiminaysaa rajo inteesa la eg ayay dowladda federaalka ka qabtaa inay kaga guuleysato dacwaddaas Kenya ee sheeganayso badda Soomaaliya ku haysato kayskan runtii wuxuu marayaa meeshii ugu dambeysay oo aan ka sugayno maxkamadda caalamiga ah inay soo saarto go-aankeeda insha allah waxaan rajeynayaa go-aankaas inuu noqdo go-aan anagu aan leenahay dhulkaas aan leenahay baddaas aan leenahay waan aaminsanahay annagaa iska leh caruurteena iska leh caruurtaan awaah u nahaa iska leh mustaqbalka yaa iska leh mustaqbalkooda iska leh marka sida ay u dhigeen looyaradeenna oo dee qof walba arkayay oo si u diyaarsanayeena oo sidee ay maxaa la yidhaahdaa ay u present gareeyeen kayska ay kayska u soo jeediyeen sida qurxoon hadday noqoto taariikhi sida taariikhdu labada dal iyo soohintooda ay ahayd juqraafiga siduu ahaa siday u soo bandhigeen waxaan aaminsanahay insha allah kayskani inuu sida aan kulligood aaminsanahay dhulkaas anagu inaan leenahay maxkamadduna saas ay u arki doonto insha allah rajo fiican oo aad u fiican ka qabnaa waayahay waa gabagabeynaa mudane waxaan rabaa kiiska dacwadda badda marka laga soo tago waxaa jira xadgudubyo kale oo Kenya gaar ahaan ciidamadeeda ay ka geystaan xadka Soomaaliya ay la leedahay waxaa jira in ciidamada Kenya ay ku soo xadgudbaan dhulka Soomaaliya ganacsiyo fara badan oo dhul Soomaaliya ku yaal ay burburiyaan tusaaladan soo qaadano shirkadda Hormuud oo ka mid ah shirkadihii ama shirkadda ugu weyn ee isgaarsiinta dalka ka jirta dhibaato fara badan dalkan kaga soo qayb qaadatay inta waradeedii xarumaheedii la burburiyo arintaas dawladda ma la socotaa mudane waa nasiib darro waxyaabahaasi waxyaabaha aan aaminsanahay xadgudubka Kenya ay ku samayso qaranka Soomaaliya ay ku soo xadgudubto soodinteenna iyo dhulkeenna ay burburiso saad sheegtay taawaradaas ay xoolo dad ay leeyihiin shacab aan waxba galabsan ya la duqeeyo oo dhibaatooyin loo geysto waxyaabo badan oo ay ka samayso xadgudub hawada ah ay soo gasho hadda ka horna international monitoring group naftigooda waxyaabo badan ay ku eedeeyeen Kenya oo runtii gudaha Soomaaliya ka samaysay marka waxyaabahaas oo dhan runtii waa u sheegnay waana kaga dacwoonay hay-adaha caalamiga ah xadgudubkaas oo dhan waxaan rajeynaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa in dhibaatooyinkaas waayahay gabagabadii 4 sano ee madaxweyne xilka aad haysay iyo hadda oo la taagan yahay farqi nooca Soomaaliya u dhaxeeya maxaa ku tilmaami lahayd farqiga u dhaxeeya waxaan aaminsanahay isbedel weyn inuu jiro wacyigelinta dadka sida fahamka dadku u fahamsan yihiin dowladnimada wacyigelin badan ee ka qabaan qabiilka wuxuu yahay xumaantiisa dowladdaani dadku inay ku taageersanayn qabiil iyo kooxaysi maxaa yeelay dowladihii tan ka horreysay waxaa lagu tilmaamayey urur diimeedyo iyo wax la mid ah iyo kooxaysi lagu tilmaamayey dowladdaani waxaan aaminsanahay in aanan lagu tilmaamin musuq maasuq inaan lagu tilmaamin qaraabakiil iyo eex iyo qabyaalad aanan iyo cadaalad darro aanan lagu tilmaamin intaas waxa weeye waa horumar la gaaray oo ah madaxdu inay iska ilaaliyaan ammaanadii loo dhiibay siday tahay inay u hayaan wax alla wixii xadgudub ah oo shacabkana inay iska ilaaliyaan marka horumar la taaban karo dhanka dhaqaalaha waa ka gaarnay
oo dee caalamka runtii sheegay World Bankiga iyo IMF-ka labada waa sheegeen qaabka aan u maamulno miisaaniyadeenna, qaabka aan u maamulno sidaan u kharash gareyno, dakhligeena sidaan u kordhinay, canshuuraadkeena sidaan kor ugu qaadnay, sidaan mushaaraadka u bixinno, dowlad wanaagga aan ka shaqeyno, waxyaabo badan oo runtii lagu tilmaami karo dhanka dhaqaalaha isbedel inaan uga sameyn aan ku sameynay oo reform la taaban kara ah. Security-ga dhanka amnigana sidaas oo kale inaan dib u dhisayno ciidanka fari kama qodna, runtii waqti badan ayaa loo baahan yahay in ciidan xoog leh oo tayo leh oo difaacan kara xuduudihiisa, badihiisa iyo cirkaba hawada difaacan kara in la helo waqti u baahan tahay. Laakiin bilaaw fiican in ciidanka dhismihiisa uu fiican yahay, ciidan tayo leh oo tababar fiican leh oo qalab fiican leh runtii inay hadda joogaan oo difaaci kara sharafka ummadnimo iyo qarannimo Soomaali ee difaaci kara maxaa la yiraahdaa waana muujiyeen runtii tusaalooyinkaas oo waxa ugu dambeeyay hadda Owdhegle iyo Barira ugu dambeeyay oo ay ka soo hooyeen guulo la taaban karo. intii dhimatay Allahu naxariisto, inta dhaawacna Ilaahay degdeg hawa kiciyo. waxa weeye calaamadaha muujinaya annagoo aysan AMISOM nala socon in aan goobaheena difaacan karno, aan kaga adkaan karno cadowga, waana waxaan hore u dhicin, aan hore u dhici jirin weeye. marka dhismihii waa socdaa ciidankuna ma aha ciidan qof leeyahay iyo xisbi leeyahay, maaha, waa ciidan Soomaaliyeed oo astaan qaran ah. waxay u shaqeeyaan markaas dowladda markaas joogta, maxaan ku raahdaa waajibaadkooda waxay u fushanayaan awaamiirta markaas taalla oo lagu badbaadinayo dalka, lagu badbaadinayo ama dadka lagu badbaadinayo ama diinta lagu ilaalinayo. runtii waajibaadkaasna waa guteen oo waa la arkaa wanaagooda iyo tayadooda iyo shaqadooda iyo asluubtooda waa la arkaa, waana sii xoojinayna insha Allah. waayahay waxaan rabaa madaxweyne inaan soo gabagabeeyo wareysiga. haddii fariin kale ay ku dhiman tahay waan kusoo dhaweynaya, haddii kale waxaan rabaa wareysiga inaan soo xiro. marka ugu dambeysa aan iraahdo waa Shabeelle, waa u mahadcelinayaa runtii sida wanaagsan aad dadka u gaarsiisaan fariimaha wanaagsan oo dadka wacyigooda kor u qaadaya. waana waxyaabaha runtii loo baahan yahay in la kobciyo ama ay bataan media. marka meel dictator ka jiro media ma jiro xor ah. marka macnaheedu waxa weeye magaaladan hadda waxaa jira ilaa kontomeeyo tartama oo media hadday yihiin telefishino iyo radio. marka waxaan jeclahay inay 100 gaaraan oo ay tartamaan iyagoo xor ah oo mas-uuliyadooduna ay tahay inay dadka wax wanaagsan oo wax taraya, aqoontooda kor u qaadaya, wacyigooda kor u qaadaya inay ku kordhiyaan. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan uga hambalyeeyo Ramadaan Kariim, soonkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo cibaado san Ilaahay inuu nagu gaarsiiyo iyo amni ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay waa muhiim dowladnimadeena inaan ilaashano, dalkeena inaan ilaashano, sumcadiisa inaan ilaashano, sharafkiisa ilaashano, in dowlad kastoo markaas joogta garab la siiyo, lala shaqeeyo. cadowga Soomaaliya waa badan yahay, waa soo kabanaynaa. waxaan rajeynaynaa insha Allah inaan ka adkaano cadow kasta oo raba Soomaaliya inuu dhibaateeyo. waxaana uga hortagi karnaa ama kaga guulaysan karnaa annagoo midaysan oo mid ah, annagoo ilaalina Soomaalinimo, annagoo uga hortagna wadaniyad ma aha qabiil. waxaan ummadda Soomaaliyeed aan ku boorinayaa inay adkeeyaan wadaniyadda iyo wadajirka iyo midnimada Soomaaliya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أد بان ugu mahad celinayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo wareysigan gaarka ah siiyay telefishinka ama muuqbaahiyaha Shabeelle oo aan xoog ku saaray inay wax qabadka iyo doorashada dalka marka uu galayo. intaan wareysigan kana oo kala ku kulmi doono inagoo isku duuban. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier